dabcan lagu markaa naanayso ama la dhaho shahaadiinta ay caabudaan calaamadan waa taqaanaan intiina badan calaamadan sidoo kale waa taqaanaan waa labada calaamadood miiska u saaran waa sixiroole naag ah oo markaa sixiroolayaasha ugu waaweyn ruushka ka mid ah weeyaan ayuu wargeyskan ama telefishinkan wareysanaya hadalka ay ku hadli doonto ee dadka marka maadaama ay tahay dadka ugu waaweyn ee ruushka wax sixira dadka sixirkooda oonan qabanay ka hadlaysaa bal cajiib waxaa ah hadalkeeda cidda inta badan markay isku dayso inay sixirto ama marka loo keeno qolooyinkan noo sixir la dhaho kuwa uga adag mararka qaarkiisa xataa nafsadeeda halistay u gasho ay ka hadlaysaa waxay leedahay waan shidi doonaa dabcan waxay leedahay xataa waxaa dhacaysa sawirkii oo la ii keenay marka aan fiirinayo maskaxdeedu dhan in macnaha qalqal la geliyo oo laga masaxo waana ujeeda horteeda u yaalaa sawirka ama ma ahan miya waxaa dhacaysa in wax u dhufto oo kale yani waxay ku dhacaan oo kale ayaan dareemaya waayo dadkaasi oo aynan sixiri karin nacam muslimiintu way leedahay guud ahaan laakiin si gaar ahaan waxay u tilmaami doontaa bal arag hal mar aan shido video waan idin fasirayaa It is easier to work. It is easier to attach an entity, and it is easier to take possession of a person's mind. macnaha way noo fududahay leedahay in aan qofka asaga dhanba qabsano maskaxiyan u qabsano oon la wareegno yani qofka Does it mean that it's more difficult to influence a person if he keeps his thoughts in purity? Yes. عفوا hadalka waxaa ka horeeyay marka oo videogan uu ka jaran yahay videogii dheeraa interviewga dheeraa maxaa yeelay ma doona inaan zaa'id ugu soo dhaweeyo copyright claims darteeda copyright ahaan macnaha inta la ogolyahay sharci ahaan uun qaadanayna macnaha waxay leedahay dadka inta badan iska caadiga ah markaas wuxuu leeyahay dadka caadiga maxaad ula jeedaa ma waxaad ula jeedaa dadka iimaankooda uu sarreeyo adag yahay sixirkiina ma qabta sidaas baad ula jeedaa waxay ku jawaabaysaa Yes, absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. hay leedahay xaqiiqatan maxaa yeelay marka ay noqotay tiri ama ay leedahay diimaha kala duwan marka aan dadka haysta yani isku dayn inaan la wareegno qalbiyan ama hantidooda ama aan sixirno waxaa nagu adag ay leedahay guud ahaan muslimiinta way nagu adag yihiin gaar ahaan kuwooda ku dhaqma diinta They do namaz every day and read prayers on a daily basis. waxay maalin walba tukadaan salaado namaaz yani salaada la dhahaa sidaas oo kale prayers ay sameeyaan maalin walba oo dabcan way duceystaan They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence. xataa u fiirso sida ay u bixinayso marka maxaan ku dhahaa tilmaanta waxay leedahay waxay ku jiraan maalin walba aad dareemaysaa ama marka aan doonayn inaan wax ku sameyno waxay ku dhex jiraan muxuu ahaa xijaab oo baasaan yacnihii ku xiraaya When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, markaan isku dayno inaan weerarno ama aan sixirno ama wax ku sameyno markii waxaan dareemaynaa wax bay akhriyaanay tiri duco ah many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. macnaha waxay ka duwan yihiin ay leedahay kuwa hadda aan ka hadlayo muslimiinta oo diintooda ku dhaqma kiristaanka ee muddo kadib un hal mar yimaada kaniisadda weliba u yimaada markay dhibaato ku dhacdo keliya macal asaf anigoo ka xun muslimiin badana maanta waxay yihiin aad maqlaysaa markay dhib un ku dhacdo inay ilaahay u cararaan ay duceystaan ama salaada bilaabaan ama misaajidka tagaan Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore protects them very well. That's why it is very difficult to work to make any kind of influence on a true Muslim believer. muslimiinta way ku adag yihiin dhinaca ilaahay ahaan ama diin ahaan awood sarreysa ayay aaminsan yihiin taasoo markaa si fiican lagu difaacda waana adag tahay inaan macnaha qabsano maskaxiyan ama aan la wareegno ama aan saameyn ku yeelano muslimiinta rasmiga true believer ay leedahay kuwa runta ahaan u rumaysan alle Is this some kind of a good egregore? Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it. How do you sense it? For marka cajiib waxa aan kala yaabaa gaalada markay ka hadlayaan ruuxda maalan shariirka ama xun iyo ruuxda wanaagsan enerjiga kada yani markay ka hadlayaan si la yaab leh u fasiraan macnaha wax annaga aan aaminsanahay ma ahan laakiin wax cajiib ah oo si kala ah ayaad tacan dareemaysaa ruuxda interviewga dheer oo khaasatan telefishinka uu wareysanayo waxay ku celcelinaysaa haddana in yar aad ka arkaysaa macnaha ruux waxaa jirtay leedahay
ilan sixirkan iyo caalamka aadka u liita cidda ku dhex jirta waxay dareemaysaa marka qaarkiisa ama marka qaarkiisa badana yani maadaama ay shayaadiintii caabudo shaydaankaasina asal ahaan jinka laga abuuray dabka waxay dareemayaan waa maxay kuleelka iyo dabka iyo wixii lamidka marka waxay u yaqaanaan dabka iyo kuleelkaasi ruuxdii sharta badnayd camal ilan shayaadiintuna aan shar ka abuuran yani marka markay arkaan shartaasi ayagoo maalin walba og markay arkaan yani cagsigeeda oo ka duwan ruuxdii fiicneed ee qaboobeed ee dabka daminaysa camal sidaasay yani sheegayaan yani For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this threat and you fail? Or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. waxaan hadda sheegayo macnaha wuxuu weydiinayaa sidee ku dhacaysaa aad ku qabanaysaan qofka ama yani physically jir ahaan maad u qabanaysaan oo ay tahay agtiin inuu joogo ama sidee macnaha oo kale su-aashaasi sidaasaan filaya dabcan way dhaaftay hadalka maadaama dheeraa waxay leedahay waxaa adagay leedahay inaan qofkaasi ilaahay ku xiran ama practicingka ama true muslimka ah hadduu qofka hadlaayo waa sixroole waa gaal oo ilaah gaal xataa marka aan leenahay ma ahan gaal ilaahay aaminsan oo rumaysan maya waa shayaadiinta dadka caabuda ayaan ka hadlaya oo sixroole inay tahay dee caalamka laga yaqaano caan ah yani dabcan caana markaan laga garanayn adiga laakiin ruushka iyo eryadaasi waa laga yaqaanaa idaacadahana in badan hadda ayaamaha way ka hadlaan waraysigeeda iyo waxyaalaha ay ka hadlaysay maxaa yeele waraysiga aad u dheer yahay marka waxay leedahay qofkaasi adkaarta ama ducooyinka iyo salaadaha tukada marka aan isku dayn inaan qabanno ama horteena ha joogay leedahay ama sawirkiisana noo keeno wax un ayaa i dhoggareeya ama i dhufta yani iga leexiya ama sawirkii horteeda yaalla maskaxdayda waa vanishes yani wax un macnaha mirqaaya dheh oo meeshii ka baxaya yani saan ugu jeeday sawirkii horteeda u yaalay haddana ma qaban karo maxaa yeele sicirkii aan qabanayn marka awoodaa jirtay leedahay waxaan diidaysa naga celinaysa ogow alle wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala ina cibaadii laysa laka calayhim sultaan ibliis marka alle ula hadlayay oo uu yidhi waan dhuminayaa oo sidanaan ku samaynayaa la uqwiyannahum ajmaciin alle wuxuu ugu jaabay ina cibaadii laysa laka calayhim sultaan ilaa man ittabacaka min alghaawiin kuwa liitee dhunsan keliyaad saamayn kartaa ma ahane addoommadii runta ahay si wanaagsan ii caabuda mukhlasiinta ah laysa laka calayhim sultaan awood kuma liid ma qaban kartid waxba kuma samayn kartid iyo wixii la midka ah Thus, I can clearly see that a person is covered with something. Does this only work with Muslims? It does for me. macnaha waxay leedahay waxaba dabcan daboola ama maxaan ku dhahay aan dareemaysaa in ay maxaan ku dhahaye sida xijaab oo kale ay ku jiraan sidaasay leedahay markaasa wuxuu leeyahay arrintan ma muslimiinta keliya meesha aan ku socday hadal inaan dabcan maxaan filaya But it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something.